first. I can be. kulanti wacan oo xiisa leh dhammaantiinba akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kusoo dhawaada telefishinka oo aydu maalin walba waqtigan oo kale aydun ka daawataan magaalada Stockholm iyo inta kulaashana waaxigeeda galabnimada barnaamijkan markuu ku dhaafo ayaa caweysiinka habeenkii markay saacadu tahay 12 habeenimo aydun ka daawataan telefishinka oo kasoo baxa xarunta caanka ah ee loo yaqaan Open Channel oo ku taal magaalada Stockholm ee cariga Sweden mudane iyo marwooyin caruur iyo eroole dhammaantiinba waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan galabta waxaan si aad u salaameynaa dhammaan dadka qaraabadooda iyo heladooda uga yimi caalamka ee ku sugan magaalada Stockholm oo aanu leenahay kusoo dhawaada magaalada Stockholm oo ah caasimadda waddanka Sweden oo ah runtii magaalo aad u qurux badan oo dalxiiskana ku macaan idinkii eheladiina iyo inta safarka noogu timiba waxaan idin leenahay saaxiibayaal salaan aad iyo aad weyn baan idin soo gudbinaynaa haddaan martida inoo timi ee magaalada Stockholm galabta inala joogtay iyo caweysnimadan intaba aan ka gudbo barnaamijkeenan ayaa waxa uu yahay barnaamijkii ugu dambeeyay sanadkan 2011 inagoo ku guda jirna maalmihii ugu dambeeyay ama aan oran karno waa sabtidii ugu dambeysay sanadkan oo maanta ah 30 isla caawa ayaa waxa ay noqonaysaa aan oran karno waa 30 raalli ahaada isla caawa ayaa waxa ay markay saacadu ku beegantahay 12 habeenimo ay isbedelayso ee barnaamijkan sidoo kale wuxuu noqon karaa barnaamijkii ugu horeeyay sanadka 2012 si kastaba te sanadkii 2011 ayaa gubagabadiisa aynu ku jirnaa iyadoo caawa la macasalaamaynayo halkaas oo sanadkii 2011 uu la tagay taariikhdiisii iyo wixii markaa ilaahay uu subxaanahu wa ta'ala sanadka ugu talagalay iyadoo ilaahay quraankeena inoogu sheegay oo uu yiri maalin walba maalinta kale waa ka duwan tahay kulli yawmin huwa fi sha'ni marka macnaheedu waxa uu yahay sanad waliba waxa uu leeyahay wax lagu ixtiraamo xanuun iyo wax walba gudihiisa ayuu ku watay sanadku haddaba 2011 ayaa waxa aan halkan daawadayaal aan idinka sheegaynaa in barnaamijkeeni maadaama uu yahay barnaamijkeeni ugu dambeeyay ee ka soo baxa in xarunta Open Channel ayaa waxa aan aad ugu faraxsanahay in sanadkani uu si wanaagsan oo qurux badan xagga telefishinka uu inoogu dhamaaday barnaamijyadii haddaba telefishinka ka baxay ayaa waxay ahaayeen barnaamijyo taariikhiya oo runtii lagu tilmaami karo barnaamijyo isugu kala jira dhinaca arrimaha diinta dhinaca arrimaha bulshada iyo waliba dhinaca arrimaha siyaasadda sidoo kale wax barnaamijyada aan halkan ka soo daynay ayaa waxaa kamid ahaa barnaamijyooyin maaweelo ah halkaas oo heeso aad u macaan oo bulshada Soomaalidu ay runtii aad u jeceshahay halkan aan ka soo daynay haddaba bal haddaan guud maro barnaamijyadii aan soo daynay ayaa runtii waxaan oran karaa barnaamijyada isdhexgalka waddankan Sweden ayaa waxaan xooga saarnay sanadkan 2011 dhamaaday waxaana halkan ka soo daynay barnaamijyadeeni ka baxay 70% waxay u badnaayeen arrimaha bulshada iyo integrationka waddankan Sweden oo runtii ah telefishinku waxyaabaha uu sanadkan 2011 uu focus ka saaray halkaas oo guulo waaweyn aan ka soo hooynay iyadoo dad aad u tiro badan ay barnaamijyada runtii ay ka qayb qaateen hadday tahay dad aqoon-yahan ah hadday tahay dad xirfad leh hadday tahay dad caadiya hadday tahay bulshada Sweden runtii barnaamijyo aad u fara badan oo xagga integrationka ayaa halkan laga soo daayay iyadana waxaan ka maqnayn dhinaca barnaamijyada arrimaha diiniga oo runtii sanadkan telefishinku uu xoog saaray iyadoo bishiiba hal mar aan soo dayn jirnay wacdiyada diiniga ah halkaas oo barnaamijyada diiniga ay la faahantooda ay ku soo bateen telefishinka xagga barnaamijyada siyaasadda ayaa hoos u dhacweyn uu ku yimi usiiba geeska Afrika siyaasadda halkan aan ka soo dayno iyadoo aan markaa 10% uu barnaamijyada halkan ka baxay ay siyaasad u badnaayeen si kastaba haatee guul ayuu inoogu dhamaaday sanadka xagga telefishinka markaan usoo noqono dhinaca barnaamijyadii ugu xiisaha badnaa ee aan halkan kasoo daynay haddaan milicsano
runtii barnaamijyo aada u fara badan ayaan halkan kasoo daynay, laakiin barnaamijkii recordka jabiyey waxa uu noqday barnaamijkii waalidiintii ama aabihii iyo hooyadii caruurtooda sida sharci darada kamunka maashta ee magaalada Stockholm uga qaatay. barnaamijkaas ayaa waxa uu noqday barnaamijka loogu daawashada badnaa, loogu hadalhaynta badnaa, runtiina gaaray caalamka oo dhan. halkaasoo runtii sanadka 2011 anagoo ku guda jirna maalmihii ugu dambeeyey, ama baan odhan karna maalintii ugu dambeysay, ayaa waxaa waalidiintii halkaa noogu yimi labadii waalidiin caruurtoodii weli alanka way ka maqan tahay, afartoodii caruur ahaa. runtiina waa arrin tiiraanyo leh oo waalid waliba way garan karaan dhibaatada iyo aafada ay leedahay in ilmahaagii si xaq darro ah lagaga qaado, oo markaa iyadoo sharciga lagu adeegsanayo. barnaamijkaasi waxa uu ahaa barnaamijka loogu daawashada badan yahay ee aan odhan karno. runtii hambalyo iyo bogaadin baan usoo jeedinaynaa hooyo Aamina iyo Aabe Ibraahim oo dadweynaha Soomaaliyeed ma aha oo kaliya Stockholm iyo Sweden oo kaliya, caalamka oo dhan ummadda Soomaaliyeed degan digniin culus siiyey, isla markaana qurbaha dad aada u tiro badan oo wadankii ku sugan xataa ay ka baqi jireen oo odhan jireen qurbaha amaba reer Yurub iyo galbeedku caruurta ayay u dan leeyihiin. digniintii ay haddaba bixiyeen iyo fariintooda waxay gaadhay meel aada u dheer. hambalyo iyo bogaadin baan u diraya, ilaahayna waxaan uga baryayaa caruurtooda in uu ilaahay usoo celiyo. intiina kale caruurahooda ka warwarsan, ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan 2012 inaan aafa noocaasi idinkana idinku dhicin. runtii barnaamijyadii halkan ka baxay lama xisaabi karo. barnaamijyo aada u fara badan oo kala duwan ayaan halkan kasoo daynay oo aan ku tilmaami karo in ay ahaayeen barnaamijyo wada dhaxalgal ah. dhinaca fanka iyo suugaanta sidaan hore idinku sheegnay waxay ahaayeen barnaamijyada ugu qiimaha badan ee halkan iyagana kasoo baxa. dadweynuhuna waxaan iyagana lafahaantooda ugu hambalyeynayna sida wanaagsan ee ay emailada caalamka iyo weliba wadankan Sweden ay nagala soo xiriireen, iyo dad aada u tiro badan oo fikrado noo soo jeediyey iyagoo fikradooda ay kamid ahaayeen. waxaa jira runtii dad aada u tiro badan oo aan jeclayn inay telefishinka yimaadaan amaba shaashada ka muuqdaan, laakiin fikrado aada iyo aada u tiro badan haya oo marka aan ku tilmaami karno waalidiin, hooyooyin, aabayaal, dhalinyaro. dad aada u tiro badan ayaa nala soo xiriiray oo ka cudur daartay inaanay kamarada hor iman karayn, laakiin noo sheegay in ay hayaan fikrado aada u fara badan oo ku saabsan arrimaha bulshada. haddaba bal sanadkan 2012 waxaan xooga saaraynaa bal dadka fikradaha haya sidii fikirkooda uu telefishinka u iman lahaa. haddaynu ku noqono waxyaabihii guud ahaan ka dhacay wadankan Sweden sanadkan 2012 runtii wadankan Sweden waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee ka dhacay waxaa kamid ahaa sidaad ka warqataan dhaqaale xumo xoog leh ayaa caalamka oo dhan ka dhacday. dhaqaale xumadaasi lafahaanteeda Swedishka way saameysay oo shirkado fara badan ayaa runtii kacay oo albaabada loo xiray, sida shirkada weyne caanka ah ee loo yaqaano Saab oo iyadoo albaabada guud ahaanba loo xiray. waxyaabaha kale ugu yaabka badnaa ee wadankan Sweden ka dhacay waxaa kamid ahaa isbedelka ku yimi xisbiga Socialka ayaa sidaad ka warqabtaan sanad wuxuu wadankan uu Sweden hogaaminayay in ka badan 100 sanadood. haddaba xisbigaas oo ahaa xisbiga ugu weyn ama majority-ga la odhan kara ayaa markaliya wuxuu isu bedelay xisbi meel dhexaada oo tiradiisu maalinba maalinta ka dambeysa ay hoos usii dhacayso. arrintaas ayaa waxay ahayd 2011 mucjisooyinkii ugu waaweynaa ee wadankan Sweden uu kaga tegay, iyadoo siyaasadu ay muujinaysa inaanay meelna taagnayn. xisbigii midigta ahaa ee moderaadka oo awal ahaa xisbi yar ayaa maanta waxa uu yahay xisbiga ugu majority-ga badan amaba ugu dadka taageera ay ugu badan yihiin wadankan Sweden. wadankan sidoo kale iyadana waxaa aada arkeysan jaraa-idada wadankan Sweden inay iyaguna aada iyo aada wax looga qoray xaaladda boqorka wadankan Sweden. boqorka wadanka Sweden ayaa runtii isagana waxaa laga qoray warbixino aada u tiro badan oo ay kamid yihiin in uu markaa uu sameeyey waxyaabo gogol dhaaf ah sida ay ku andacoonayeen dad markaa soo sheegay. boqorka iyo reer boqor ayaa arrinkaasi uu aada u gilgilay, iyada oo runtii murugo xoog leh ay ku keentay sida ay sheegeen haweeneyda dhaxalka leh boqortooyada Victoria iyo hooyadeed. waxaanay sheegeen in ay runtii tiiraanyo iyo murugo ay ku noqotay. sanadka 2011 uu ugu dhamaaday runtii mid ceeb weyn ay dareemayaan iyo dhaleecay weyn in loo geystay. guud ahaan wadankan Sweden xaaladiisa dhaqaale marka aad eegto in sanadka 2011 uu ka badbaaday baa la yiraahdaa.
dhibaatooyinkii iyo aafooyinkii dhaqaale xumo ee ka dhacay wadamadan reer Yurub oo dhan. waxaan wadankani uu ku guuleystay maadaama aanu ku jirin lacagta euroda inuu markaa lacagtiisa crownku aanay markaa hoos u dhac weyni aanu ku iman. sanadkan 2011 ayaa waxa uu ahaa sanad runtii wadanka Sweden laga xusay iyadana sida oo kale markii ugu horeysay amaba aan oran karno muddo dheer waa markii ugu horeysay ee uu qaatay Nobel literatureka jaa-isada suugaanta la siiyay nin Swedish. taas ayaa iyaduna runtii muddo dheer oo aanay markaa dadka Swedish aanay ku guuleysan jaa-isadaas ayay waxay noqotay sanadkan 2011 mid iyadana lagu xusuusto. guud ahaan dhinaca sharciyada Soomaalida sanadkan 2011 runtii wuxuu ahaa sanad ay sharciyada lagu adkeeyay dadka Soomaalida guud ahaan siiba dadka ehladooda loo keenayo iyadoo sanadkan hal qof oo aan la keenin ehel Soomaali ah oo ay ku dhamaatay sida sanadkii 2011 inaan waa markii ugu horeysay ee qof Soomaaliya ilmo u dhalay in si toos loogu diido. raja jirta laakiin sida ay sheegayaan iyadoo markaa la filayo sanadkan 2012 in ay markaa bisha July oo kale ay dhaqan galay heshiis markaa caruuraha Soomaalida iyo waalidiintooda la isugu keenayo. guud ahaan sharciyada dadka Soomaalida boqolkiiba 80 way siiyeen sharciyo fara badan baan bixiyeen oo ah dadkii magangeliyo doonka ku yimisiiba dadka markaa ka yimid koonfurta Soomaaliya. dad badanna way soo diideen walow aanay jirin dad ay celiyeen oo hadda ay ku celiyeen wadamadoodii. dadku sanadkan televisionka waxyaabihii aadka loo weydiiyay waxaa kamid ahaa xageebaa la isla marayaa sharciyada. arrintaas su-aashaas ayaana ugu badnayd oo ay dadweynuhuna soo weydiiyeen. runtiina sanadkan imika berita dhalanaya 2012 bisha July ayuun baana la filayaa in ay markaa isbedel u dhaco. dhaqdhaqaaq kale ayaa isaguna ka socday sanadka 2011 soo dhaweynta loo diyaar garoobayo dadka Soomaalida ah ee la keenayo. kamunada qaar ayaa waxaa la keenaya ilaa 300 oo qoys. arrintaas ayaa waxaa laga dareemaya kamuno fara badan oo isu diyaarinaya hadday tahay xagga guryaha, hadday tahay xagga deegaanka, caafimaadka, macallimiinta, dhakhaatiirta, turjubaanada. sidoo kale waxa runtii dadaal xoog leh ayaa jiray oo dadaal xoog leh ayaa socda oo loo sameynaya dadka markaa ka imanaya wadamada Afrika amaba ku kala sugan caalamka ee ehelkooda uu degan yahay ama caruurahooda ay ka maqan yihiin ee dadkooda ay degan yihiin wadanka Sweden. runtii daawadayaal warbixintan oo runtii aan ugu talagalnay inaan kusoo gabagabayno ayaa waxa aan runtii televisionka sanadkan 2011 waxyaabihii isagana aan kusoo qaadayno waxaa kamid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee caalamka. dunida carabta ayaa iyadana waxaa ka dhacay kacdoono isdaba jooga halkaasoo xukunka lagu riday qaar fara badan oo kamid ah markaa dadkii madaxdii dictatorada ahaa ee ka talinayay dunida carabta. waxaana kacdoonkaas uu ka bilaabmay wadanka Tunisia, waxaa ku xigay wadanka Egypt, Libya, Syria, Yemen. dabku uu gaaray carab oo dhan meel ay joogaanba. xataa wadamada khaliijka ayaa gilgilmay sanadka 2011. sanadka 2011 ayaa waxa uu kaga tegay dunida caalamka siiba dunida islaamka wadamada carabta oo dhan. wuxuu ahaa sanad aada u dhib badan oo warwar iyo walbahaar fara badan uu soo maray iyaga oo boqolaal sanadood ay dhakada dictator ka haysteen oo wadanku uu nidaamo marka ay ka jireen markali ay dadweynaha ay kaceen halkaasoo ay dhalisay kacdoonadaasi in dhiig fara badan uu ku daato iyadoo dhiigaas uu la arkayay kamaradaha caalamka iyadoo markaa ay dilal toogasho dadka shacabka la beegsanayo iyadoo lagu soo gunaanaday in markaa madaxweynihii wadanka Liibiya Muammar Gaddafi markaa ay dileen koox markaa kasoo horjeeday amaba nolol ku qabatay. guud ahaan waxa uu ahaa sanadkaasi sanad aada wadamada carabtu ay taariikhdooda galay. waxaana uu noqon karaa sanadkii dimuqraadiyadda ama wuxuu noqon karaa sanadkii ugu darnaa markaa iyagoo markaa dimuqraadiyad aan dhaqan u lahayn in ay u gudbaan markaa in qabaa'ilo iyo isqabqabsi uu bilaabmo iyadoo meelaha qaar laga sheegayaba in ay already bilaabmatay isqabqabsi aada u tiro badan. halkaad nagala socotaan weli waa televisionka oo aan galabta halkan idinka soo daynayna iyo caweysnimadanba dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay. waxaa kaloo iyadana xusid mudan aafadii ka dhacday wadanka Japan oo ay dad aada u tiro badan oo ilaa 20,000 ay ku dhinteen markii sanadka 2011 horaantiisii tsunamidu ay ku dhufatay
arintaas ayaa iyaduna waxa ay noqotay mid si weyn looga xuso wadamadan Yurub wadamada caalamka oo dhan, halkaas oo markii ugu horeysay ee quwadda nuclearka warshadaha laga dhaliyana ay runtii ay ku timi shilal markaa baqdin iyo naxdin geliyay dadka reer Japan. guud ahaan sanadka 2011 ayaa wuxuu ahaa sanad dhaqaalaha caalamka uu warwar xoog leh uu soo gaaray, iyadoo wadamada Yurub ay ka bilaabmeen markaa dhaqaale xumo sida wadamada Greega, Talyaaniga iyo Spain, iyadoo markaa laga cabsi qabay inuu sanadkaasi noqdo sanadkii ugu xumaa ee soo maray wadamada Yurub oo dhan. haddaynu noqono dalka Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika, hadday tahay Somaliland, Djibouti, Ethiopia, wadamadaas oo dhan sanadka 2011 wuxuunbaa ugu muhiimsanaa dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho, halkaas oo ciidamada Al-Shabaab ay ka baxeen iyagoo markaa sheegay inay dibgarasho dagaal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. dhacdadaas ayaa ugu muhiimsanayd oo ka dhacday runtii oo ahayd markii ugu horeysay muddo dheer in hal kooxi ay ka taliso amaba dowlad ha ahaato amaba koox kale ha ahaatee, marka laga reebo waqtigii maxaakiinta muddo aada u dheer in ay kooxi marka ay ku guuleysatay dagaalka Muqdisho, waana ciidamada dowladda ku meel gaarka ah markii ay ka saareen ciidamada Al-Shabaab. dhinaca Somaliland dhacdadii ugu muhiimsanayd iyo dhacdooyinka ugu muhiimsan waxaa kamid ah madaxweynaha Somaliland markii uu ku dhawaaqay furashada xisbiyada, taasoo imika isdiiwaangelinta xisbiyadu ay si weyn uga socoto guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland. dalka Somaliland ayaa waxa uu u noqonaysaa tani fursad dad aada u tiro badan oo markaa qaba hami siyaasadeed ama hunguri xoogan uu ka hayo mar un in ay madaxweynenimada kursigeeda ay ku fadhiistaan, inay markaa fursad u helaan inay xisbi furtaan si ay markaa ay ugu tartamaan jagada madaxweynenimada. ilaa iyo 20 xisbi ayaana hadda isdiiwaangeliyey dalka Somaliland. dhacdooyinkaas ayaa ugu muhiimsanaa. way jiraan dhacdooyin kale oo iyaguna xusid mudan, laakiin waqtiguna noo saamaxayn ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhacdooyinkii aanu idiin haynay 2011. haddaynu kasoo noqono geeska Afrika oo aynu nimaadno wadankeena Sweden oo cimiladuna runtii imika ay fiican tahay, sanadka 2011 ayaa wuxuu caan ku ah noqday sanadkii ugu horeeyay aan dhibic barafihi amaba wax yar oo barafa mooyaane aan la arag baraf xajmigiisu aada u weyn yahay, taasoo farxad gelisay. mar aan shalay dhex marayay xaafadda Shaarholman ayaa waxaan la kulmay laba haween ah, haweenyaanuna odhanina laba qof oo da-doodu aada u waaweyn tahay, waxaanay ku salaamay barafkii sanadkan waa uu ina daayay sanadkan. runtii si farxad leh ay waxay u yidhaahdeen eedda waanu ka raysanay maadaama anagu ka mid nahay dadka ku dhici kara ama ku kufi kara barafka, maadaama dadka waaweyn ay khatar u yahay barafku. waxaad arkaysaa dad waaweyn oo iska lugeynaya waqtigan oo kalena ay guryaha ku jiri jireen. runtii xataa dadka qaar baa barafku ma aha kuley dadka waaweyn oo kaliya kuma dhacaan, dadka dhalinyarada xataa way dhacaan, iyadoo markaas uu barafku noqday wax runtii aada looga sheekaystay waddankan Sweden waqtigan xaadirka ah in uu barafkii sanadkan uu inaga yaraaday. mana la garan karo, waxaa dadka qaar ay leeyihin waxaa laga yaabaa in uu soo daaho laakiin uu inagu dheeraado oo ilaa April May la arko barafkoo dhacaya. si kastaba alagtee waa arrin caalamul geyb ah oo ilaahay ku cilmi leeyahay goortu iman doono. sanadka 2011 ayaa waxa uu inagaga tegay runtii dad fara badan amaba aan odhan kara dhalinyaro waayeel. dad badan baa magaalada Stockholm iyo waddanka Sweden ku dhintay, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, oo weliba ay dhalinyaro u badnaayeen dadkii dhintay sanadkan. dhinaca kale waxaa dhinac socday caruur fara badan oo dhalatay oo Soomaali ah kusoo korodhay iyaguna bulshada Sweden. iyagana waxaan in runtii hambalyo weyn loo dira ah, dad aada u tiro badan ayaa sanadkan runtii rikoorka aroosyada ayaa ka dhacay magaalada Stockholm, iyadoo dad aada u tiro badan ay arooseen. waxaananu idin leenahay intiini dhalashada caruurta u dhalatay, intiina aroosyada ah, intiina martida maanta mar kale magaalada noogu ah, saaxiibada qaaliga ah ee telefishinka igala qeyb qaata, Marwa Alma, saaxiibkay Cali Maxamed, dhalinyaro kale oo fara badan, Muuse Dalmar, ay kamid yihiin Hodan, ay kamid yihiin Caydaruus, ay kamid yihiin Hayaan, ay kamid yihiin dadkii aan kusoo casuunay telefishinka Salama Tomay. lama tirin karo. runtii waxaan leeyahay saaxiibada qaaliga ana sanad wanaagsan saaxiibayaal. iminkana waxaan u gudbaynaa heestii aan ugu talagalnay bal maanta dadka martida inoo ah ee magaalada Stockholm oo aan leenahay saaxiibayaal kusoo dhawaada. weliba kuwiina caruuska u yimi ayaan heestan usoo dabarnay, iyo inta kale ee iyaguba aroosatay oo leenahay noqda kuwii isku waara, ilaahay ubad khayr qabana kala siiyo. dhammaan saaxiibada aanan magacyadooda sheegin, dhammaan ehelada, asxaabta, waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullah iyo hees macaan.
عشق ودرري فرحة يتماشى دايكينا نوسمو عشق ودرري فرحة يتماشى دايكينا نوسمو عروس
عاشق ودرري فرحة دماشة دايكنا نغسمو
dareenkiyo ku ekaaytinugaal jacayli arrimiyo edeg baanu galaaye halistu aparo ilalaha dareenkiyo ku ekaaytinugaal jacayli arrimiyo edeg baanu galaaye amarale uurkaad ku taalla amarale oridaydi noqotay amarale ubad aayatiliyo amarale udubkoodu raagaaye amarale uurkaad ku taalla amarale oridaydi noqotay amarale ubad aayatiliyo amarale udubkoodu raagaaye ami waxaan joognaa runta lagu arooraa ruuxii ku aaminaha abaa loo galaa aqal lagula hooyida ami waxaan joognaa runta lagu arooraa ruuxii ku aaminaha abaa loo galaa aqal lagula hooyida